diyaarad baan soo raacay hadda aniga iyo wadaadadan qaar ila socday waa lana kala soocay aniga waxa la yiri waa wadaadkaas iska yar ma aragtay iska yar buuran oo kuraasidan dambe ee economiga leeyahay waa ku yar yihiin khayr allah si xaaji cabdirasaaq iyo waxa la ii soo gooyay tigirkii kursiga hore kooxdan iska yar yarna kursiga dambe la fariisiyay taana waxa la yiraahdaa economy taydana waxa la yiraahdaa first class mise business class baa la yiraahdaa marka kursigaasi waa kursi weyn weey mar haddaad rabto waa kursi mar haddaad rabtana waa ku sariir oo sariir baad ka dhigan oo meel un baad taaban oo iskala bixino iskala bixi oo iska seexa weey cuntadana adiga uun ha isu daraanine marnaba inaad cunto ka aamusta laguma ogolo way kula dul taagan tahay gabadhii halkan marba maxaan ku keenaa bay ku leedahay waa la kala soocay dadkii musaafiriinta ahaa waa kala soocan yihiin soo maaha qolooyinka masaakiinta ee kursiga yar ku fadhiya mar quraa wax loo geeyaa mar dambe hadday wax dalbaan iyaga ma garanayo xaalkooda suuya waa la socotaan soo maaha waxaan kala duwannahay aniga iyo dadkii ila socday waa muddatu safar 5 saac bay diyaaraduna soo waday 5 saacadood ala ilaahay waa kala socnay aniguna alaabta fiican baan ku dhex jiray iyaguna meeshaas iska wanaagsan laakiinse bay ku jireen laakiin waa muddatu safar diyaaradii markay soo degtay oo dhulka soo dhigatay cagaheeda oo ilaahayna nabad keenay dadkii ugu horeeyay degay ee ka degay diyaaradda annaga ahayn qolooyinkeennii first class ka noocayn waa la nagu xushmeynaya laakiin waa la nagu xushmeeyay meeshii wanaagsaneyd ee fiicnayd waa la naga kaxeeyay haddaan diidoon isku dhajiyoon ilaa war kursigani waa ila fiican yahay kanoo kala ma haystay uu iska joogaya laga yeeli ma laga yeelaya qasab baa liiga dejin haddaan si ixtiraam aan ku degi waayo waa laga soo tagay muddada safarka ah waxaa la yiraahaa mataacu musaafiriinta mataacooda la yiraahaa anwaacdaas ay u kala gedisan yihiin waliba diyaaradda halkan Kenya soo aadaysay waa mid iska yar bari baan raacay mid London u socota oo diyaaradahan waaweyn ee labada dabaq ah tigirkaas anigu lacagtiisa anama bixin laygama bixine wiil yar oo fariid oo meesha qatariyada ka shaqeeya diyaaradda qadariga ku shaqeeya saaxiib aan nahay oo reer Kenyaati asalkiisu yahayba ayaa markaan meesha tagay ii bedelay oo first class buu geeyay business ma first class waa kursi waa xagga kore weeye lacagtiisa kursigaas ilaa London la tagayo oo one way ah waa 32,000 oo riyaal taqriiban $8,000 meelahaas weeyaan taqriiban $8,000 meelaha weeye laakiin si haddaad fiiriso waa istaahilayo waa iska qol kaamil ah oo adiga ku soo xiran oo musqushaadu gaar ku tahay oo fadhile oo wax leh waxaan sawiran karin weey marka safarkaasaan galay aad buu fiicnaa anoo de iska jiifo oo iska raaxaysanayo mar fadhiga iska fadhiisanayo mar kursigii kala fadhiisanayo mar iska seexanayo ayaa waqtigii yaraaday diyaaradii waa soo degtay waxa la yiri meeshaan ma joogaysid ka soo deg iska soo deg baa leeyahay waa iska soo degay la ilaaha illa allah hada mutaaca almusaafiriin waa tusaale iyo mithaal weeye adduunyada ilaahay dadka isaga kala soocay ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات إسجايري إلهي بعدتك رزق جودا كلا فضلي معها مسكح جودا مروق جودا يمال جودا مدنا ما هو تقسيم ربانئة لكن إلهي وحيل ومتاع المسافرين باتهين وأنت سفر كأت كجر تنوي مسافر باتهاي قربة فرست جلاسة قربة بزنس قربة إقتصادية قربة كسي دنبية وهكذا فقس ما دام أن مسافر تهاي حلقات دونيا زادكي ماشي هذا السعودي الرسم هيدا قرار كهيد الدار الآخرة هيد وناك سنيد إلى هيك فوق تلاقي إنه فوق راحيو دولي قالوا لنا يسيدين لمن